bandhiga jaamacadaha Somaliland gaar ahaan Burco iyo bariga Somaliland waxa uu si rasmi ah maanta uga bilaabmay magaalada Burco goobta oo ahayd hotel waxa halkaasi ka soo qayb galay 9 jaamacadood oo ku yaala Burco iyo gobolada bariga Somaliland waxaana goob joog ahaa xubno ka tirsan wasaaradda waxbarashada waxaana halkaasi laga soo jeediyay khudbado ku aadan bandhiga carweedkaasi كورسيسكا عفايل markay sheegi karaan khibrada runtii iyo qaab doo sameeyaan ay la waday karaan midba mid waxa ku dhaantad kale ay ku kala faadeysan karaan marka runtii muhiimad gaar ah ayuu leeyahay gaar ahaan gobolka Togdheer marka waxaan ku baraarujinayaa runtii inay hawsha aad iyo aad uga qayb galo maanta reer Burco ama gobolada barigu nasiib baa u yeelatay in la idin keeno ay halkayna ku yimaadaan ardayda sekondariyada ka baxday maanta فرصتها سيده uga faa'iideysanayaan waxa weeye inay jaamacad walba isku taagaan jaamacad walba inay isku taagaan oo ay yiraahdaan maxaa bixisaan bandhiga 9 jaamacadood ee ka dhisan bariga Jamhuuriyadda Somaliland inuu inoo furan yahay isagoo socon doona muddo 2 cisho ah waxaan aad ugu boorinayaa in la isku wargeliyo in la isu sheego inay ardaydu yimaadaan oo ay ka soo qayb qaataan oo ay indhahooda ay ku arkaan arday waliba maadada uu ku wanaagsan yahay iyo jaamacad waliba waxyaabaha ay soo bandhigtay inay ardayda u dhigi doonto jaamacadaha ka soo qayb galay carwadani ayaa mid walba tustay bulshada waxyaabaha ay bixiso iyagoo isugu jiray hab qoraaleed iyo muuqaallo kala duwan oo halkaas lagu soo bandhigay waxaana jaamacaduhu halkaas isku weydaarsadeen afkaar iyo khibrado kala duwan meeshaanu joognaay waa Burco waa gobolka Togdheer jaamacadan aanu matalaynaa waa jaamacadda Nugaal gobolka Sool magaalada Laascaanood waxaan ka soo qayb galnay bandhig jaamacadeedkan ay isugu yimaadeen 9 jaamacadood ee jaamacadaha barigu anagu waanu ka baxsanahay gobolka oo waxaan ka soconnaa gobol kaleeto laakiin jaamacadani waa jaamacad jirta ilaa iyo 14 sano 2004 baa la aasaasay ilaa 9 kulliyadood ayay jaamacadani bixisaa jaamacadani generation waa jaamacad saameyn ku leh geeska Afrika oo ay ku taalo faracyo kala duwan oo ay ka mid tahay Somaliland Ethiopia iyo Southern Sudan oo ay mid kasta si ballaaran ay uga furan tahay qaybteena halkan Somaliland waxa la bilaabay 2010kii run ahaantii waxay ka mid tahay jaamacadaha dalka muddada yar ee kooban ay jireen leadingka ka noqday ama sumcadda badan ka sameeyay hadda waxay jaamacadu ka furan tahay gobolka Gabiley sidoo kale gobolka Togdheer iyo gobolka Hargeysa oo faracyada jaamacadda ka mid ah anigu ku hadlaya magaca jaamacadda Najaax jaamacadda Najaax ee magaalada Burco jaamacadaas oo ah jaamacad islaamiya kuleedaha bixisana ay ka dugan yihiin kuleedaha kale ama fakultiyada kale ee dalka yaala jaamacaddan Najaax waxa weeyaan waxa la aasaasay 2015 baa la aasaasay for us here with Abasote waxaanu nahay jaamacadda Abasote oo xarunta ugu weyn tahay Hargeysa faraca aanu ku leenahay Burco ku dhawaad 1 sano waa u jiraa markii hore waxaanu ku bilownay koorsooyin gaaban sida Ingiriiska laakiin waraantii January waxaanu bilownay darajada masterka courses in English and then in January we started with the masters waxbarashada sare ayaa horumar sameeysay sanawaadkii ugu dambeeyay jaamacaduhu carwo bandhigeedan ka soo qayb galay yihiin kuwa bixiya culum kala duwan walow haddana kulliyadaha caafimaadka iyo tiknoolajiyadu yihiin kuwa ugu badan ee jaamacadahaasi bixiyaan waxa halkan muddo 2 casho ah ka socon doona carwada jaamacadaha ee gobolka Togdheer waxa la dhigi karaa waa Chinese ardayda ka qalin jabisay dugsiyada sare ay ku xulan karaan jaamacadaha ay doonayaan inay ku biiraan Sakariye Ilyas Jakarta warbaahinta Star Burco